kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ugu talagalnay inaan uga hadalno sirdoonka caalamka uga halista badan tobanka dawladood ee sirdoonkooda uga awood badan yihiin ayaa mid u qaadan doona hadduu alla yiraahdo maanta se waxa ugu horeeya oo aan qaadanayno waxa weeye sirdoonka kaalinta koowaad ku jira marka laga hadlayo shirqoolada laga fuliyo dibadda waana sirdoonka Mossad waxa leh maamulka Yahuuda waxa uu inta badan xoogiisa ka howlgalaa bariga dhexe loolanku uga adagsan waxa uu dhaxeeya labada sirdoon ee ay kala leeyihiin Iran iyo Israel 2009 inkastoo ay adag tahay inaad heshid macluumaad badan oo ku saabsan sirdoonka maamulka Israel haddana waxa jira dhowr howlgal oo dibadda u soo baxa kuwaas oo ay dusiyaan qaar ka mid ah dad ka shaqeynaya sirdoonka amaba looga talagalay in lagu khalkhalgeliyo cadawga ay Israel leedahay iyo dawladaha kale boolo xuftada mararka qaar waxay gaartaa meelan caadi ahayn aan soo qaadano 2019 weerar dibadda ay ka fuliyeen maamulka Israel sirdoonkooda Mossad la yiraahdo waxa ugu badan ay ka howlgalaan waxa weeye dawladaha khaliijka laakiin dawladahaasi ma oga waxa la sheegaa 2019 Mossad in ay fulisay in ka badan 40 weerar oo ay ka fulisay dibadda weeraradaas intooda badan waxa ay ka dhaceen wadanka Suuriya waxa sirdoonka Israel inta badan si xoog leh uu uga howlgalaa hadda meelaha uu burburka uu ka jiro tusaale ahaan Suuriya waxa la sheegaa in meelo badan oo ka tirsan wadanka Suuriya ay si firfircoon uga howlgalaan xubno sarsare oo ka tirsan Mossad waxa ay dileen dhowr kamid ah saraakiisha militariga dalka Suuriya iyo kuwa sirdoona waxa inta dheer dawladda Suuriya walaaca uga badan ay qabto waxa weeye in sirdoonka Israel ay jooga gudaha Suuriya ay halis ku yihiin tusaale ahaan taliska madaxweyne Bashar al-Assad dhowr mar waxa sigtay madaxweynaha wadanka Suuriya Bashar al-Assad mar waxa ay ahayd 2019 xilli uu joogay meel u dhow gegada garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq in halkaas ay gantaalo ku soo dhaceen markii ay dib loo raacay sirdoonka Israel ayaa la sheegay in arrinkaas ay ku lug lahaayeen Israel waxay isku dayday in dhowr mar ay kharajiso hogaamiyaha dalkaas ururka Hezbollah oo iyaguna halkaas joog kuwaas oo had iyo jeer ka feejigan xubno sare oo ka tirsan Mossad waxa kale oo dalalka ay si firfircoon uga howlgalaan kamid ah boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo isutaga Imaaraadka Carabta inkastoo si dhab ah aan daha looga qaadin haddana warar sirdoon ah oo la helay 2019 aakhirkeedii ayaa ku waramaya xubno sarsare oo ka tirsan Mossad oo si qarsoodi u joogo dalkaas kuwa qaar waxa la sheegaa in ay ku sugo yihiin salagyada Mareykanka uu ku leeyahay boqortooyada qaarna waxa la sheegaa in si caadi ah ay uga howlgalaan boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa ay inta badan shacabka tusaale ahaan ay u sheegtaa in Israel iyo dawladdaasi aanay xiriir ka dhaxayn laakiin warar sirdoon ah oo iyaguna sidoo kale la helay 2018 dhamaadkii ayaa waxa ay sheegayaan wargeyska caanka ah ee siyaasadda iyo arrimaha qarsoodiga makriga ay sirdoonka iyo xukuumadaha qaar ay maleegayaan dibadda soo dhiga ee Wikileaks la yiraahdo ayaa daha ka qaaday xiriirka Israel iyo ka dhaxaya dawladaha khaliijka Carabta uu yahay mid aan caadi ahayn tabadelkeedana shacabka ay ka dahsoon yihiin dilal laga geystay bariga dhexe oo in muddo ah lagu weerarsanaa ayaa markii dambe la ogaaday in ay fulisay Mossad waxa ay mararka qaar fulisaa shirqoolo u eg kuwa maafiyada Talyaaniga iyo wadanka Mexico joogta ay fuliyaan waxa la sheegaa qaarkood xitaa in kuwaasi ay isticmaalaan weerar ka dhacay wadanka Suuriya oo lagu khaarajiyay xubno badan oo sirdoon ah oo ka tirsan dawladda Suuriya ayaa ka dhacay sanadkii 2019 dalkaas waxa si firfircoon hadda ay uga howlgalaan wadamo badan Lebanon ayaa kamid ah meelaha sidoo xoog leh Israel sirdoonkeed uga howlgalaan Israel waxa ay sirdoonkeed inta badan adeegsadaan qalab kala duwan tusaale ahaan waxa ay adeegsadaan shimbiraha waxa sidoo kale ay isticmaalaan drones aan inta badan muuqan waxa la sheegaa in wadanka Iraq xitaa ay fuliyeen waxa xitaa la sheegaa in dilkii Qasim Suleymani ay kaalin firfircoon ku lahaayeen xogta ugu badan ayaa la sheegaa in sirdoonka Mareykanka ee CIA ay ka helaan Israel waxa ay sanadkii aan soo dhaafeen xog aad u xasaasi ah waxayna ahayd markii ay madaxda ururka NATO ay ku shirayeen magaalada London ee wadanka Ingiriiska halkaas oo la qorsheeyay in ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu kulankaasi ka qayb galo laakiin warar xasaasi ah oo ay heleen sirdoonka Israel ayaa muujinaya in Benjamin Netanyahu halis ku jiro amnigiisa haddii shirkaas uu ka qayb galo waxa ayna heleen xog sheegaysay in sirdoonka Iran ay u diyaariyeen shirqoolka lagu khaarajiyay laha Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Yahuuda taasi waxa ay noqotay arrin ka yaabisay sirdoon badan oo caalamka ka shaqeeya waxa iyana halisteeda laha sirdoonka Iran oo dirba arrintaas ka warhelay waxa la sheegay Iran in sirdoonkeeda markiiba ay joojiyeen marka ay ogaadeen xogta ay Mossad heshay isla markaana ra'iisul wasaaraha uusan safarkaasi si aadaynin tani waxa ay muujinaysaa halista sirdoonka Israel ay leeyihiin waana sirdoonka ugu halista badan ee caalamka mararka qaar waxa la sheegay in siyaabo
kala duwan ee dadku u khaarajiyaan kuwa ayaa inta ciyaar dhaqameed lagu ballamiyay dabadeeto la khaarajiyaa maanta waxaan inta ku soo afmeeraynaa sirdoonka dunida uga halista badan oo ah midkii Israa'iil ee Mossad ama maalmaha fowdan ugu soo haayana waxaan qaadan doonaa midka la mid ah tani inta aan kulmi doono mar kale nabadgelyo